الله naxariistay waxaa maanta qawro ku yaala degmada Kaxda gobolka Banaadir lagu aasay Allah naxariistayna wadan badal jaamac xirsi oo xali maqribkii ka xoogeesan ay salaada maqrib kadib ku dishay degmada Kaxda xilli uu abwaanka ka soo baxay salaada maqrib isagoo ku sii jeeday hoogiisa oo ku yaala degmada Kaxda waxaana kooxda dilka geystay durbadiiba ay meesha isaga baxsadeen aaska Allah naxariistayna wadoonka waxaa ka soo qayb galay ehelada marxuumka xubno ka socda maamulka degmada Kaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah ehelada marxuumka oo ka qayb galay aaska ayaa sheegay in nabadoonku uu ahaa oday Soomaaliyeed oo had iyo jeer u taagnaa nabadeynta iyo dadaalada dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo ka wacyigelinta aafada qabyaaladda iyagoona si guud ugu tacsiyay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska qaraabada iyo xigtada marxuumka waxayna eebba ugu bariyeen inuu ka waraabiyo jannadiisa firdowso waxaan maanta joognaa qubraha degmada Kaxda oo ay maanta aanu ku aasayno walaalkeen abwaankeeni bedel jaamac xirsi الله ونحرسه oo xalay ku geeriyooday degmada Kaxda oo niman maaragtay basooladay xalay ku dileen degmada Kaxda salaadii afurka maghrib waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un runtii maalin walba shakhsi Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida meel kasta uu joogaba in on nasiibo sidan oo kala intay ku dhacdo aan inta ku dhaafno baan Soomaali hadda waxaan nahay Soomaali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un kullu nafsin daaqiatul maut waa wada dhimanaya dhamaanteen geerisan sugaysa qof walba caraas laga sameeyay caraas ku noqonaya dhamaanteen xaq Allah ka iman xaq Allah u noqonayna walaalkeena gacan ka xaqdan bay dishay bil Ramadaan soo saada maghrib soo tukaday afurka socdo waxa lagu dilay ma naqaana marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sugayna maanta oo ma qeeran in xaqiisa siiyo insha Allah ta'ala kulay hadda gudoomiyaha degmada iyo nabasugida iyo dhamaan laamaha ammaanka dhamaantooda hadda hawsha ku wada jiraan xog baa la hayaa xogtina hor dhac mar rabo insha Allah ta'ala ragaasi soo qabta rajeynaya wadadooda la marsiyo insha Allah ta'ala الله ونحرسته بدل جامع حرسي كل نفس ذائقة الموت كل ساعة دي سوم بك أكيد ما نعرفين وقتها أيضا لكن إن هذا نصيب ذوي سداد يتوكي بدر يكون بيجان تهدي حق الله إيجو بالرمضان بأهيد وصومنا وحكوا أفريح بدي إلهي وقلنا حرست هذا بقولنا سيب بدني هاي أنا كنا سمري إيمان الله نقصيه Soomaaliya oo idin la sameeyay iimaan Allah abwaan bedel jaamac xirsi ayaa kamid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho wuxuuna inta badan ka hadli jiray xaaladaha siyaasadeed ee dalka sidoo kalena wuxuu ka qayb gali jiray doodaha siyaasadeed ee markaas taagan Cabdi Xaaji warbaahinta Nation Muqdisho